Yeah, I agree with you. Yeah, Betty, I agree with you. Waan kugu raacay. Waxay noo socday muuqaalkeenii hore nolosha magaalada iyo tuulada marka. In the city, there are more opportunities for education. In the city, magaalada gudaheeda, there are waxaa jira more opportunity, fursadooyin badan for education oo waxbarasho. Employment and entertainment. But it's also more crowded and polluted. For education baan maraynay magaalada waxaa ka jira fursadooyin waxbarasho, employment kuwa shaqo, entertainment iyo maaweelaba. But it's also, laakiin sidoo kale, it's more crowded aad ayay jaamu tahay and polluted una wasakhaysan tahay magaaladu. I think it depends on the individual's priorities and lifestyle. I think waxaan u malaynayaa buu yidhi it depended on inay ku xidhan tahay individual priorities shakhsiyaadku waxay ahmiyad kala siiyaan on lifestyle iyo qaab nololeedkooda. Lifestyle. For example, if someone wants to have a quiet and simple life, for example, tusaale ahaan buu yidhi if someone wants hadduu qof doonayo to have inuu haysto a quiet and simple life nolol xasiloon oo fudud. the village is a better option. Village tuuladu is better option waa khiyaar wanaagsan ama waa dooq wanaagsan. But if someone wants to have a fast-paced and dynamic life, the city is a better option. Bet laakiin buu yidhi if someone haddii qof wants doonayo to have inuu haysto a fast pace taasi oo ka wado happening very quickly ay wax walbaba si degdega ku dhaqayaan and dynamic life iyo nolol isbedbedelaysa city magaaladu is better option waa khiyaarka wanaagsan. That's a good point. Also, in the village, waxaa tidhi that is taasi a good point oo qodob wanaagsan. In the village tuulada, in the village, people have closer relationships with their neighbors. in the village tuulada, people have a closer relationship waxay dadku xiriir dhow la leeyihiin with their neighbors jaarkooda. And they tend to support each other in times of need. And they tend to waxayna u badan yihiin support each other inay istaageeraan in times of need waqtiga laysu baahan yahay. Tend to meel ku qoro waa jumlad cusub micnaheeduna yahay likely to happen wax laga yaabo inuu dhici doono. But in the city, people are more independent and they rely on themselves more. In the city magaalada, people are more independent dadku aad ayay magaalada u madax bannaan yihiin independent qof xor ah weeye and they rely on themselves waxayna ku tiirsan yihiin nafahooda.